سومالي لانيو جبوتي وحيسوي الله يرحمه حاج حسن بوليد مدحويني كوبادي جبوتي وحكونا شيء سوى سومالي لانا مدحويني يوريي السومالي لان سيرايو يسوي جبوتي كسوة صعداء يسكون هذا الأمر السيلع مدحويني كوري ظاهر ريالك هاي هو يلي وارجع جبوتي أنا جبوتي ما بقول مركزات كنت يسوي اللي تاسع كذا dhalinyarada imka laga yaabo in technology-gu ku fooriyay computer-ka iyo mobile-ka iyo internet-ka waxaan u sheegayaa Djibouti iyo Somaliland geed qof iyo qoys inay isku mid yihiin si walba aniga markii halkii laga kaxeeyay 9 kiista iyo markii meelaha qoladii igaga hadhay halkan waa wada madaxda Djibouti qoladii aanu camuud joognayna waa wada saraakiisha Djibouti oo tan la soo gala kamid ah oo gaaska deganay iyo qaar kale oo imika la yiri waa ritaan garoobiya anigu waan carray oo maanta magaalada ku arkay oo sheekh Saciid kamid ah xagga kalena waa saas oo kale oo inta in ka badan baa joogta oo Djibouti marka walaalayaal dad isku mid ah nahay insha Allah dhalinyarada waxa la soo yaabay bari mustaqbalka labada dal waxaynu ka dhigi dalal wadaaga hawsha iyo fikirka iyo waxqabadka iyo wada noolaanshaha iyada oo mid waliba uu yahay dawladdiisii iyo xuduudkiisii iyo sharciyadiisii waxaanu ka baaqaynaa reer Djibouti tihiin shacib iyo dawladba dhowr iyo 20 sanadood ama 30 ku dhawaad Soomaaliyadii hore ee Somali Republic loo jiray oo hadda noqotay Soomaaliland iyo Soomaaliya ay dhibaato iyo colaado iyo hawl ku jireen qolada koonfureed Somaliland nabad bahatay aanay tamar badan oo dhaqaale lahayn waxaan uga maadaqaynaa reer Djibouti walaalaha Soomaaliyeed meel joogaan bas oo gacan qabteen iyo qof kasta markuu Djibouti yimaado oo dareemo inuu guriga taasay dad iyo xukuumadba ka sameeyeen waxa ku uga mahadnaqaya anigu waxaanu ahayd jabhadii asana waxa markhaati madoona dadka Djibouti madaxweynahooda maanta jooga General Zakariya inay taageerada ugu badan ee nabadgeliyo iyo nololba ahayd soo ay u geysteen asana iyaga shacabka Djibouti waa taariikh aan dafin karin taariikhdu iyadaas qorta waa wax ku dhigan taariikhda oo waa wixii la soo ah taana Somaliland oo maanta weydinaysa Somaliland oo markaa laga yaabo in xidid cunad ka jirtay markay ka heshiiyeen ciddii u soo gurmatay ee nabadooda wax ka tartay iyo ciddii halganka markii ay dawladda dagaalamay wax ka tartayba waa la xusuusay oo waa taariikh dadku waxay soo sheegaysa waxa kaloo idin sheegaya taariikhda da'yarta markii aan dalka soo galay haddaanu asana ahayn oo guri jirin oo raashin jirin oo biyo jirin oo cusbitaal jirin oo meel askari station police jirin oo meel tuuga lagu xidhay ka wax dilaa aanay jirin waftigii ugu horeeyay dal aanu taagnay Djibouti way ahayd aniga iyo diqsi iyo ismaal kala yiraahdo Umar Boobe Xandulle duqsi baan hogaaminayay الله نحرته حاج حسن بولد بان oo tagnay wuxuu u ogolaaday markiiba maxay ku daran buuy biyo la cabaanay tayankii deed mashiinada la geeyay halkan ka qaad mashiinkii horeeyay leerka shay ka ahaa kambarigii hore jiray Sootalka ee isgaarsiinta ugu horeeyay waxa uu ahaa telefoonkii hore ee Djibouti ee markaa la bedelay maalinta aragtay waa taariikh saala iyadoo waxay soo hayeen oo aan la iga sheekeyn goobjoog ka ahay waxa ka horeysay marar badan oo Djibouti dhibaato ka dhacday oo Hargeysa soo gurbatay oo ciidamaadkii ilaa iyo ka soo qaatay xarbi ilaa iyo ka soo qaad buduriyaalkii marka soo la joogo saasa la soo ahay dadku xasay soo ahaayeen intaas waa iga xasuus walaalayaal waxaynu nahay maanta dad mid ah xagga dhaqaalaha iyo horumarka Djibouti maanta ku horeysa